kadib markii uu ka quustay boqorkii Roomaanka in uu ka guulaysto Abuubakar al-Baqilaani, waxa uu go'aansaday inuu ka careysiiyo si uu wax u yeelo. oo waxa uu hadal xun ka sheegay xaaskii nebiga naxariis iyo nabadgelyo dushiisa ha ahaatee Caaisha bintu Abibakar. haddaba maxaa uu ku jawaabay Abuubakar al-Baqilaani? soo dhowow qaadiga muslimiintow, kuguma aynu aqoon in aad ka soo dibdhacdid wakhtiga ballanta. kulankeennu waxa uu ahaa salaada casar kadib sida aan ku ballanay. markaan dhammaystayna waa aniga kula jooga boqorka Roomaankow. weligay isma lahayn waxaad arki doontaa qof ballantayda ka hormarinaya ballan kale. salaadu agteena boqoro, wax walba waa ay nagala horaysaa oo aan ka hormarinaa. hadalka addinka ku jira ee ah Allahu Akbar waxa uu ina tusayaa in wax alle ka weyn oo ka horeeya uusan jirin. dhib ma leh qaadiga muslimiintow. uma baahni in aan wakhtiga ku dhumino arrinkaas ee baadarigan waxa uu wataa su'aal uu rabo inaad uga jawaabto. bal waxaad ii sheegtaa maxaa ay samaysay xaaska nebigiinna? maxaase ka jira arrinkii lagu tuhmay? markii ay awoodi waayeen munaafiqiintu inay waxyeeleeyaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam, waxa ay damceen inay dhabarka ka toogtaan. waxa ayna ka been abuurteen xaaskiisa. balse allaah ayaa ka baryeelay 7 samo dushooda. waxa uuna caddeeyey hadalka ay dhaheen weynidiisa. waana uu fadeexeeyey munaafiqiintii oo uu duleeyey. nacam, qofkii rumaysan kitaabkiinna ayaa rumaysanaya sheekadan. annagu waxaan rabnaa caddayn la taaban karo oo aan sheekadan ahayn. haddii aynu rumaysannahay qur-aankiina doodba namaba dhex marteen. soo ma ogid marka laga soo tago inaan caalim ahay aan sidoo kale ahay qaadi. haddaba aan kuu dhigo qaacido dahab ah, laga yaabaa inay maalin ku anfacdee. qaacidadu waxay leedahay caddeynta waxaa laga rabaa qofka muddaciga ah, yacni qofka sheegtaha ah. marka labadeena kan caddeynta laga rabo waa adiga. anigu daliil iyo caddayntoona ma hayo. arrinku waa arrin dhulkiinna ka dhacay ee keliya waxaan kuu soo guuriyey hadal dhexdiina ku faafay. aan kuu soo dhoweeyo arrinka si aad u fahanto. soo kuma been abuuran Yuhuuddu Maryam markii ay dhashay Ciise. oo soo kuma aysan sheegin inay xumaan samaysay. ilaa iyo hadda soo ma jiraan kuwo weli wax ka sheegaya Maryam. waa xaqiiq arrinkaas. weli kuwa ayaa wax ka sheega. hagaag. haddaba waa 2 dumar ah. mid weligeed maysan guursan oo waa Maryam, saas oo ay tahayna waxay dhashay cunug. tan kalena waa mid guursatay oo waa Caaisha, saas oo ay tahayna cunug maysan dhalin. haddaba qalbiga daxalaystay haddii uu labadooda mid tuhmayo waxa uu tuhmi lahaa tan hore. laakiin ma hadda alle labadoodaba waa ay kana sahan yihiin arrinkaas. laakiin idinku afxumadiina waxaad tuhmaysaan tii guursatay ee aan cunugba dhalin. annaguna waxa aan bari yeelnay tii aan guursan haddana cunuga dhashay. baadarigow, wax su'aal ah ma ka qabtaa jawaabtaas? run ahaantii run ahaantii wakhtigii doodda waa uu dhammaaday. bari toolana kulan cusub iyo dood cusub hanoo ahaato. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.